الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. sidaa walaalkeen baa inoo sheegay waxaa inaga muuqda diin jacayl, khayr jacayl, masaajid jacayl, waana nicmo weynu ilaahayna siiyey. ilahay inaan ugu mahdino weeyaan. dad badan fadhiga maskiidka ma karayaan. ilaahay jalla wacalaa wuxuu ina jeclaysiiyey inaan masaajidda fadhiisanno, oon masaajidda ku ictikaafno, oon ilaahay hadalkiisa aan qadarino. ma aha shaqsi waxaad u timaadeen, waa ilaahay kalaamkiisa, waa ilaahay diintiisa inaan maqallo, inaan ilaahay kalaamkiisa maqallo, oo diinteenna macaana ilaahayna siiyey aan isku baraarujinno. waayo waa luqmaan alxakiim baa lagu yidhi diintan iyo xikmaddan halkeed ka heshay baa lagu yidhi. luqmaan waa ka ilaah kaga warramay qisadiisa fii suurati luqmaan. wuxuu yidhi majlisna aniga fadhiista oo waxbaan ka qaataa, majliska kalena anaa la fadhiisto oo waxbaan siiyaa buu yidhi. yacni majliskan anigaa fadhiisanayo waxbaan ka dhagaysan, waan ka baran, waan ka faa'iidaysan. majliska aan isleedahay waad dhaantaana intoon la fadhiisteen wixii aan ku dhaamaan u sheegay buu yidhi. sidaasay markaa xikmaddan ilaahay igu siiyey buu yidhi. nin xakiima buu ahaa. xikmadiisa waxaa ka mid a dardaarankii ilmihiisa uu siiyey. waa ka ilaahay qur-aanka inoogu sheegay sida ubadkiisa u tarbiyadaynayay. marka majaalistan iimaaniga ee cilmiga ee masaajidda dhexdeeda inooga socda, khayr badan baan ka faa'iidaysanaynaa. diinteenna macaan baan isku baraarujinaynaa. mar walba in laysku nasteexeeyo oo la isbaraarujiyo, oo caamada iyo culummadu cilaaqo wada yeeshaan, oo mujtamaca muslimiintu masaajidda ay ku xidhnaadaan. waataan ku gaadhayna horumar iyo midnimo weeyaan. sidaa darteed buu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi diintu waa naseexo. ayay naseexo u tahay baa nebiga lagu yidhi. ilaahay sidee buu addoonku ugu naseexaynayaa? markaad ilaahay jalla wacala aad garatid, ee aad caabudid, ee cibaadadii ilaahay aad u badhax tirtid, ee dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad ilaahay ku caabuddo, ilaahay waad u naseexaysay. kitaabka ilaahay jalla wacalaa si aad ugu naseexayn, say diintu kitaabka naseexo ugu tahay. marka qur-aanka ilaahay la barto, ee la akhriyo, ee la tadabburo aayaadkiisa, ee qur-aanka ilaahay jalla wacalaa marka la akhrisanaya laga fikiro, ee wixii qur-aanku macruuf uu ku farayna aad la timaadid, wixii munkar ee qur-aanku uu kaa reebana aad ka reebtoonaatid, wixii qur-aanku xallilayna aad xalaashatid, wuxuu qur-aanku xarimayna aad xaaraan u aragtid. aad qur-aanka ilaahay baratod ummadda aad bartid, sidii loo fidin lahaa, loo bari lahaa, loogu dhaqmi lahaa, layskugu xakumi lahaana aad ka shaqaysid. nacam, kitaabka ilahay waad u nasteexaysay. rasuulkiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam si aad ugu nasteexaynaysaa rasuulka ilaahay. haddaad rasuulkiisa adeecdid oo wixii wanaagii nebigu ku farayna aad la timaadid
wixii munkar iyo bidc iyo khuraafaad iyo shirkiyaadana aad ka reebtoonaatid waad u nasteexaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waatii nabigeennu uu jeclaa inuu mar walba ummadiisa ka arko waxa uu nabigu jeclaa inuu arko ummadiisa ilaahay caabudaysa ummadiisa ilaahay baryaysa ummadiisa ilaahay rajaynaysa ummadda u socota sidii ilaahay uu rabay markuu arko nabigu uu farxi jiray calayhi salaatu wasalaam a'immada muslimiinta seed ugu nasteexaynaysaa haddaad taaca lagaa helo samci wa taaca liuli lamri intaanad ku arkin wax sharciga ilaahay jalla wacalaa ay kaga baxayaan ood u sabirto ood u ducayso ood wixii macruufa aad ku adeecdo waad u nasteexaysa caamada muslimiinta seed ugu nasteexaynaysaa haddaad qur-aanka ilaahay soo dejiyo diinta naseexada addiinu nasiixa buu nebigu yidhi waa jawaamicu lkalim diintu waxay naseexo caamada ugu tahay waxa weeyaan markaad xaqi ilaahay aad garatid ee xuquuqdii bini aadamkana aad iska ilaalisid ee ixsaan lagaa helo ee dadka dabeecad wanaagsan aad kula dhaqantid ee wanaag adigu aad u samaysid dhibtay kuu geysanayaanna aad iska cafidid kii ku wanaajiyena wuxuu nebigu yidhi kii ku xumeeyana wanaaji kii ku dulmiyana iska cafi buu nebigu yidhi ka wixiisa kaa xariman oo waxaaga sii kama aragtaane xumaan kugu sameeyan adigu wanaag u samee diintaas diinteenna islaamka laga bilaabo ilaahay xuquuqdiisii ilaa khalqiga ilaahay kugula abuuray ee kula degan xaqoogii diinta kuu sheegaysa haddaad ku dhaqanto noloshaadii adduunyada waxaad ka samaysatay jannay adduunyadu kuu noqonaysaa janno imaam ghazaali raxmatullaahi calayhi ayaa odhan jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa jannada adduunyada sirta nolosha dadku maanta ayay raadinayaan qaar lacag bay ka raadinayaan qaar aqoon bay ka raadinayaan qaar aqallay ka raadinayaan qaar masab bay ka raadinayaan qaar dhoof bay ka raadinayaan sirta nolosha waxay ku sheegeen culimmadii rabbaaniyiinta ahayd jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa waa inaad garataa ilaahay garo garashadeed garanaysaa ilaahay garashadii nebi maxamed iyo saxaabadu alla ay garteen waa inaad garashadaasa ayaa micyaaruulmacrifa ilaahay macrifadiisa micyaarka la doonay ummaddu inay gaadho waa iimaankii nebi maxamed ilaahay qalbigiisa uu dhigay iyo iimaankii saxaabadu nebiga ay ka qaateen taasaa micyaaruulmacrifa la yidhaha micyaaruuliimaan waalmu'minuuna kullun aamana billaah وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إنه صحابة إيمانكوغو هلك اللدوني إنه قاري قرآنك إلهي كشيكي وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إلهي قلبي وغوحوا لقي كلمة التقوى ابن عباس وحيري وكلمة التوحيد ويان كلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها بإلهي إنا كلمة إيمانك إخلاصك قلبك إنا كوغا لدي سنون قلبك دقننا بإلهي أهل بيوها ينو حقنا ويولها ينو قلمين بإلهي وإذا قيل لهم الناس آمنوا كما آمن الناس أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سيدا كواس إلهي أرميين marka u rumeeyay la yiraahdo ilaahay sida kuwaas ilaahay u garteen ilaahay u garta kuwa mithaalka loo soo qaadanayo waa asxaabtii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam marka xuquuqda ilaahay nagu leeyahay xaq ugu horeeya waa maxay waa ilaahay macrifadiisa jannada adduunyaduna waa ilaahay garo jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa oo nabigeenu kaleey salaatu wasalaam asxaabtiisa waa kii ku yiri markay muuminiintu ay jannada ay galaan ayaa ilaahay jalla wa ala ku oran doona turiiduna shay'an azidukum marabtan maaragtane waxaan jannadan ahayn oo iniga maqan oo inigu daro markaasay muuminiintii jannada la geliyo oranayaan alam tubayyid wujuhana ya rabbi miyana wajiyalkayga noo iftiimin wa tunajjina min an-nar naartaadina miyana naga badbaadin oo naga ilaalin wa tudkhilna al-janna jannadaadina miyana nasiinin ma wax ka maqan intaas oo ka baxsan oo nicmadan ka weyn baa haray markaas la oran doona ha fayakshifu alhijab dadna markaas ilaahay kashfiga ilaahay iska qaadaya hijabka fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadar ila rabbihim bu nabigu yiri ahla al-jannah lama siinin waxadooga looga kalgacayl badan yahay ilaahay tabaaraka wa ta'ala jamaalkiisa iyo kamaalkiisa daawashadiisa jannadii dhanay bay halmaamayaan jannadii bay iloobayaan naciimtii jannada ay halmaamayaan marka ilaahay wajigiisa iyo daatadiisa iyo quruxdiisa iyo kamaalkiisa markay arkaan
لذلك علماء الربانيين waxay yiraahdeen war adduunyada ninkii janno doonayo waa ilaahay garo garashada Soomaalidu ilaahay ay taqaan ma aha tala doonayo waa garashadii saxaabadu ay ilaahay u yaqaaneen Soomaalidu ilaahay waa naqaanaa kooran laakiin miskiidka markuu ka baxo waxa uu doono iskaga hadlay dadkeena maanta waxaad moodaa miskiidka markay soo galaan in la yiraahdo muslim baa tahay dibadda markuu u baxana waxaad moodaa halku kabaha ku gashanayo ayuu diintiisina ku reebaa والمساجد markaad soo gasho saad ilaahay uga baqayso ee muslimiinta u salaamayso ee muslimiinta u ixtiraamayso ee dadka aad ugu naxariisanayso ee miskiidka xaqiisa aad u ilaalinaysid ee laba miskiidka dhexdeeda adduunyo kaga sheekaysan hadaad aragto aad u leedahay war meesha waa miskiid ilaahay ka xishooda soo ma nidhaahdo mid miskiidka wax ku iibinaya hadii la arkana waxa leeyahay war meesha waa miskiid dibadda oo la baa waxaad iibinaysid qof baahan hadii miskiidka laga arkana waa u naxariisanayna diinta masaajidka dhexdeeda aad ku haysatid ayaa la doonayaa in dibadda aad ula baxdo diinta ilaahay naga doonayo ee ilaahay aad ugu nasteexayn ee nabi maxamed aad ugu nasteexayn ee aymada muslimiinta ugu nasteexayn waxa weeyaan waa diinta markaad miskiidka soo gasho aad danaynaysid ee jeceshahay ee quraanka akhrisanaysid ee ducaysanaysid ee muslimiinta ixtiraamaysid ee culimada si fiican aad u salaamaysid ee culimada aad wax ka dhageysanaysid ee miskiin markaad ku aragtana aad ugu naxariisanaysid ee miskiidka dadka aad ku ixtiraamaysid diintaas la rabaa inaad dibadda ula baxdo ma aha sheekada dibadda taala miskiidka la soo gale bal waxa la doonayaa diinta masaajida inoo taala inaan dibadda ula baxno dibadda ku muujinaa la inaga doonayaa masaajidka ayaa leh يلا مقالتنا هذا هو سيدا أقول هذا مسكيت كان إلهي بالي مركز من در في عم بعض صوت قادم وصوت هارا قادم كبها جمل في عم بعد دقن دات كان وات سلامي سي أدابي احترام لمسكيت كوكو صوت قلي وادعاء سنة وباهي هذا إلهي بعض شيئا ننتاجره أي مسكيت كصوت قالوا دعاء سنة نن أي قرابة يهين وباهنا ayaa marka aqalkiisibu ku waayay xafiiskiisina markuu tagan waa laga celiyaa wuxuu yiri miskiidkeebu ku tukadaayo miskiidka halka ku yaalo ku tukadaa baa la yiri masaajidkiibu u dhex fadhiistay marka ninkii taajirkii dad muxsiniin iska jiro ilaahay ku xiran moogta oo ilaahay cilaaqo la leh iska alla bariyo markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibadda ku sugayaa ilaa dhanacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annaka yahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataa maxaad gacmaha la taagtaagi manakaadna kaga dhumanaysaa meesha soo bax buu yidhi yaa allah الله يا مسلم تاجرك إلهي بو باهن يحي مسكينكنا إلهي بو باهن يحي مدحد إلهي بو باهن يهين دلن يرد إلهي بو باهن يهين شعوبت إلهي بو باهن تحي إلهي بن آدم كل لمحة عين كمان مرمي كرام إلهي وانو باهن لذلك مساجدك دين تأتكد حيثتد ayaa la doonaya in dibadda wala baxdo oo garataa sida masaajidkan aad uga cabsanaysay ilaahay ugu dhex bariyeysay ee bini aadanka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay ee hadaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlay aad u leedahay war meeshu waa miskiida dibadda ula baxaad u leedahay ayaa la doonayaa banaanka markaad u baxdana inaad naftaada sida u muraaqabayso oo tiraadid ilaahay bay arkaya ilaahay bay maqlaaya يا أركايا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير خلقه سميل كستيجوغان كأوجد أركايا وإلهي فهذا إله كما قرصد يعلم سر وأخفى
waxa laabtaada ku jira waa og yahay walaalkay adiga sirtayna dhaxmartay ilaahay waa og yahay Safwan bin Umayyah ayaa Umar bin Wahab ninka la oran jiray ayagoo marka labadooduba mushrikiina oo Makka ay joogaan waa zamankii nabigeena kaleey salaatu wassalaam waqcadii dagaalkii Badar baa laga soo noqday 70 gaaladana waa laga laayay 70 gaalo ana nabigu waa qafaasho uu xidho uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar bin Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa 70 kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar bin Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay tu aan u adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeelada ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan intu sabaan oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa buu yiri Safwan bin Umayyah ayaa ka faa'iideysto yiri ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raac buu ka yiri waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer وصار سعودي آلات كان زمن كان إمك أسكتور تورا إنه فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصار سعودي مدينة وصار قال عمر بن وهب سوى سيفتي سجاني قارن مر علي أمرك عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش وياني سيفتي نواك جاني قارن قرت كسيتي أردو النبي إلى علي يقول النبي إنه أجوج النبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شر أبو سعودي خير ما سعودي markaasuu ayaa rasuulka loo sheegay lagu yiri nabi Allah Umar bin Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu yiri soo galiya loo soo galiyay xaadu timidee buu ka yiri waxaan u imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysaana waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yiri oo ka wada hadalno markaa uu nabigu yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hadaa wuxuu qabbaha Allah bur ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay bur dagaalkii Badar iyadoo tan wadano Saoudiga 70 naga laayay 70 naga soo qafashay naga soo xidhayma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaad u socoto aniga kaaga warramay oo fariista adiga Safwan bin Umayyah saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intoon tagaan Maxamed aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaad u socotay kaabu haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartida ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah baa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu Jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tiri baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayna tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qori ilaahay marka waxa duwada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaada in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay
dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisay u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma ilaahay isaga ka taliya koonka tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab امرأة أبي لهب أيها النبي أن أوتمد عليه الصلاة والسلام يضع دقح سدته أبي بكر بأوتمد وهل كان فرديا رسولكنا واقف فرديا صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسولك لنا عسكو هيان مركز إلى هذا أبو بكر صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي يقول صدري قبل بقرآن كواي ستاموكت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا أركي لها بيتري بقى حيسك نستوى مدحا بشكسين لها بيتري مركز كان نقطب أبو بكر نبي ساوي يا رسول الله ما ينكو أركين ما أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقول إنك هيبل محو حكو أركا إيش وحكو أركا من لنا هاي ما يأمرك إلهي وحكو أركا دكتو وحكم مغلام مي دكتو أمرك إلهي بهو بانتاين مقاشو لوكتادو إني سعوت إلهي أمرك يسيو باهنتا خالق وإلهي مركا إلهي معرفتي سوا واجب قف كستو مسلم على قرب إلهي ونبو قرتو تصرفاتك عالمك إلهي بس كلين مركا الشيء وقوه الرأي بني آدمك اللي واجب وإلهي معرفتي سوا دينتنا النصيحة دي هالكاس يكبل أبدا لله كن عبدا لله إلهي أدون كيسي ودبر نقو خلاصة القرآن مركا علماء كور رمين خلاصة الأديان وحلي وحي الدين سماذا كسود دكتي أردن خلاصة دي وحلقة دي القرآن كريم قرآن كريم كي بالله سو خلاصة سورة الفاتحة خلاصة القرآن كلا قدقي سورة الفاتحة يا الله خلاصة لبدا عوض علماء سكو كانان إياك نعبد وإياك نستعين خلاص قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلهي جل وعلا واك قرآنك كلها صلاة وانقي بي أنقي أدونك أياك لقيب سني والصلاة وسورة الفاتحة مقعيق ويان سورة الفاتحة الصلاة بالليلة فاتحة الليلة القرآن بالليلة 7 المثاني بالليلة سورة داس وسورة دو نبي قولي والذي نفس محمد بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها إله محمد أبو ريما كدارته سورة داس سورة لمدة إنجيل لكم يسودقين فرقان لكم توراة لكم يسودقين قرآن كريم كان سورة لمدة كم جرتب رسولك يري علامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وحيري قرآن كردن بمركان يغني وحاو شرح يا وسورة فاتحة سورة فاتحة وحي إيادنا كسو أرتي إياك نعبد وإياك نستعين ومركو أضنك أوليه بسم الله الرحمن الرحيم مركا ترادد الحمد لله رب العالمين مركو أضنك يرادو إلهي بالحمدني عبدي أضنك يجيب يقوم مهديي الرحمن الرحيم مركا ترادنا أثنى علي عبدي إلهي بالأضنك يجيب أماني مالك يوم الدين مركا ترادنا مجدني عبدي أضنك يجيب وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركات رادنا إلهي بالا هذا بيني وبين عبدي تاسياني أدونك نقد حيسا الحمد لله رب العالمين مركات ري حمدني عبدي إلهي بالا أدونك بايقو حمدي الرحمن الرحيم مركات رادنا الرحمن والله الرحمة ديسو أدونك إنت اللي جوكتي خلق قردن أي وذا قاعدي ويان الرحيم إن حريستي سبنك قيامنا مؤمنين تخاصك وقدي ويان أثنى علي عبدي أظنك وأماني بإلهي إليهي مالك يوم الدين مركات رادنا يوم الدين ويوم البعث والنشور مالك إلهي ملكك يطلب إسكالها يوم مركات رادنا وحو إلهي إليهي مجدني عبدي أظنك وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركات رادنا إلهي باكل هذا بيني وبين عبدي تاسياني أظنك نقد حيسا وهقاق أدقون أي عبد وأظنك يقول نبي إنقو أنا كالمها يقرقارك يقول
sidaan doonaya ii yeel sidaa doonaysana anaa kuu yeelay sirta noloshu halkaa bay ku jirtaa dhoof ha ka raadin qaxooti ha ka raadin hay-ad loo shaqo tagana ha ka raadin waddankeena keena uga shaqo fiican waa ka hay-ad u shaqo taga hay-ad buu hebel la shaqeeya hay-ad odaygii islaantii heblaayo labadoodii wiil jaamacadday qalinjabiyeen hay-ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa hore hay-addu ka qaadatay yaa miskiin cabdillaahi bnu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruum uu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo saxaabi jaliila tilmiid min talaamiidi muxamed calayhi salaatu wasalaam qisiiskii baa ku yidhi ciidanka ninka wata waa nebi maxamed ardaydiisii arday ka mida ha naga dilin nasraaniyadda u bandhig waxli wuxuu diinta ku doorsan karana ha la siiyo si nasaarada islaamka ugu socota uu sadun can sabiilillaahi ugu noqdo laakiin waxayna ka warqabin nebi maxamed saxaabadiisu iimaankoogu carabka ma dul yaallo iimaankoogu qalbiguu dul yaallaa halkuu dul yaallaa qalbiga wa alzamahum kalimata attaqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha iimaanka saxaabadu maaha mid carabka dul yaalla mid ma adduunyo la dhaafsan kara ma aha waa mid qalbigooga iimaanku fadhiistay weyaanu ilaahay ku tacalluqsan u yeedha boqorkii ma kula tahay inaad nasraaniyadda soo gali boqortooyadeedana kala barhkeed baan ku siine markaasuu qoslay wuxuu yidhi boqortooyadaada oo dhammaystiranoo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato haddii halkaa la ii dhigo oo laygu yidhaahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallaahi inaanan yeelayn buu ka yidhi wallaahi maa facaltu buu yidhi darfata cayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxaasoo mulkigeena qaado ma yeelayo buu yidhi boqorkii baa ku yidhi dee waan ku dilaynaa dee waaba nii xidhanahay buu yidhi haddaad dilaysaan waa nii xidhanahay ixda alxusnayeyn bay sugayaan iyaku ima annasr wa ima shahaada ima inay guul helaan oo tamkiinay helaan oo ilaahay gargaarkiisa loo ballan qaado indhahooga ku arkaan ima inay shahaado helaan ee firdows ay tagaan nolosha adduunyada waxba uma arkaanba waxaa la sameeyey markaa boqorkii amar wuxuu ku bixiyey dharyo waaweyn oo saliid oo karkaraya ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii intoo la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la yidhi diinta islaamka ka noqda kama noqonayna bay yidhaahdeen markaasaa la qabto labadii ninba sida loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuura ka warrama subxaan allah isagii baa markaa la dul keenay oo xidhxidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyadda qaado markaasuu yidhi ma qaadanayo lilmaa ka daadatay markaasaa boqorkii lagu yidhi hadduu cabsoodayo waxaan u malaynaynaa inuu gaaloobayo hadda markaasaa loo bandhigay nasraaniyaddii oo lahay gaalow markaasuu yidhi ma gaaloobayo de maxaa loo oydaa lagu yidhi markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal naf baa igu jirta waa iga baxaysaa mar keliya waxaan tamaniyey jidhkayga inta tin ku taalla in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa laygu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halkaa la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoonan haysanoo ka ooyayaa buu ka yidhi naf keliya ma aha kumanyaal nafa in laygu abuuri lahaa oo mid walba halkaa intoo la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu ka yidhi boqorkii baa yidhi kan dilkiis waxay noo tari maaye ha iska sii dayno waayahay sii daaya ma kula tahay buu ka yidhi madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii dayne markaasuu yidhi magaal baan madaxa ka dhunkadaa isagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu yidhi haddii muslimiinta ila xidhan aad ii sii daynaysid haa waan kaa dhunkan haddii kale kaa dhunkan maayo buu ku yidhi markaasuu yidhi hagaag iga dhunko markaasuu yidhi magaal baan madaxa ka dhunkadaa anoo asxaabtii nebi maxamed ka mid a raggaa ha uu sii daynaya soo maahayna waa ka dhunkan ila bariba jihaad baan ku soo celinay kala bixi mayna cajiib asxaabta rasuulka ay soo galeen cumar binu khadaab baa soo dhoweeyey inuu gaal madaxa ka soo dhunkaday ayaa u sheegay baa la yidho raggii la socday baa cumar ku yidhi
cabdillaahi binu xudaafa ha dhunkano ha salaamin oo ha soo dhowayn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday innakana hebel dibaddu u baxay hebel dibaddu u baxay hebel hayad buu la shaqeeyaayo waa iskugu toostay gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan gaalada dhulkooga inaan tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa cumar ku leh gaal buu madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin cumar baa yidhi balukaadii ha waraystee sidee ku dhacday inaad nin gaala madaxa ka dhunkataa wuxuu iyakaa ku soo daayay buu yidhi si markaa cuqdadii yareeda qalbiga u gashay cumar uga biiyay buu yidhi xaqun calaa kulli muslimin an yuqabila ra'sa cabdillaahi binu xudaafata wa ana abda'u bidalika buu yidhi qof kasta oo muslima waxaa xaq ku abuu yidhi cumar in maaragtana cabdillaahi binu xudaafa uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yidhi anigana ka bilaabayo ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonaya markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay siday doonayeen marka noloshan adduunyada macaankeega raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey ee quluubtoodu taacadda ilaahay iyo dikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yidhi alaa intabihuu ilaahay baa inoo nasteexaynaya ilaahay baa inoo yeedhaya ilaahay baa inoo khayr miiraya walaa yunabbi'uka mithlu khabiir fas'al bihi khabiira waman asdaqu min allaahi qiila ilaahay baa ku warramaayo ku leh war qalbigiinnaasi wax kale ku xasili maayo aniga macrifadeedu qalbigiinu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaystaa qalbigu quraanku ku raaxaystaa qalbigu dikriga ilaahay buu ku raaxaystaa qalbigu taacadda ilaahay buu ku raaxaystaa nacam nin a'immada muslimiinta ka mida ayaa odhan jiray khamsun min dawaa'i alqalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawata alqur'aani bitadabbur qur-aanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakur iyo qiyaam alleyl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadarruc cinda asaxar iyo waqti asaxar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wacala lala munaajoodo wa khalaa'u lbadni iyo calooshaadoo mar walba badhnaata waa kasratu siyaam bay culimmadu leeyihiin inuu qofku soonkiisu bato wa mujaalasatu saalixiin dadka war wanaagsano lala fadhiisto shantaasay culimmadu yidhahdeen qalbigee dawaysaa tilaawata alqur'aani bitadabbur naga qur-aanku maasha allah waan iska akhriyaynaa tadabburkii baa naga maqan asxaabta rasuulka radia allaahu canhum laga yaabaa hal aayadoo qur-aana sida habeenka ugu celcelinayaan buu waagu u baryaayey wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun sufyaan athawri raximahullah aayaddaa qur-aanku habeenkii markuu salaatileylkii xidhay markuu gaadhay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaysan ilaahay ka malaynayn ayay kala kulmeen banka qiyaame hadduu lahaa khayr baan wataa may khayrkiisii ma aha arrintu way ka weyn tahay salaad baan wataa